هذا كبلابيا شنو قصلا أنا سكري على يحضر كل ده سوق بدينا والله سوى أكسن قلت سؤال أذك وأنا يعني رجع قاركود يكبر يعني إن مستعد تبدل الله صدق عاو سوى أكسن وأنت أصير بكلا كل مان تحاول دعاء إلى أفر عاو وحن كل بعد تبدل الله صدق وراه واقرتي هذا الكل وحيلتها رجع قاركين الإسلام كلهم تامبا واسع الإسلام كده اللي بني واسع كلهم أنا واسع لكن هو البوس كتش على إنه أفر تكلم هيو هو صح واسع لكن بقدم باجرته تهول بدن قلب اللي شو ده مش وسكر واسع وشو هذاك هذيك مركز سكري هان meeqa dooqa ugu yahay warnada mustaqbalka baqal caawid dibadda la soo dhigo afar waa ma santa sikriye daawadayaal goobtu waa kaasal aan ku sugannahay aniguna waxaan heshiina madaxay haddaan su'aal ku weydiiyo oo magaca ku bilaabaya haddii lagu yiraahdo wax kasta waa lagu qabaa hawlwelin meeqa dumar guursan lahayd aniga halka badan guursan lahayn haddii lagu wax kasta waa lagu qabaa habaqin waana loo cadaalad falaya halka ku ekaan lahayd miya hal gabar la guursan lahayd oo daacad nagaan daacad ah ma barabo naagaha badan waa sheedaamin naagaha badan ma fiicno aliska ilaaliyo naagaha badan magacaaga Abdullah Ibrahim Muudey waa ma santahay bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal waa barnaamijkeeni su'aalaha dabcan adoo magacaaga ku bilaabaya dil lagu yiraahdo hawlwelin wax kastana way suka dul saaran yihiin meeqa dumar guursan lahayd magacay marka hore waa qurxan aadam shiina madaxay aad iyo aad dad maastawriye shiina runtii tii kood balalaaya marka hore waxaan guursan lahaa runtii hadda wax walba haysto alxamdulillah tahay maxay diiday afarta buuxin lahaa hadda wax walba dhag inta shariicadu ku ogoshahay haade laakiin ta xiraan ahay midday baan ku wadanaya waa iska dambi inaa mid labaad faraha la gashay waa ma santahay bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal waa barnaamijkii su'aalaha baa wali noo socda kaasal baan ku sugannahay adoo magaca ku bilaabaya haddii lagu yiraahdo dooqaaga meeqa dumar ah baa guursan lahayd بسم الله magacaygu waa Maxamudiin hadii lagu rado dooqaaga imisa dumaraad guursan lahayd ma afartii la binay imisa tan jecelahay midba afar dumar hayga maqnaanay dib laakiin saxabadan jecelahay oo imkanaas ku yara magararaysa cilada yara jirta mooyaan aniga xabadaas hayga badan qalbigeygana taas deeqda afarta xagan kala geynay taas haban qaadi kar lahayd ciladan ay dhamaato ilaahay ka bariyana insha Allah waan ku bareynaa waa ma santahay ilaahay tawfiiq adoo magaca ku bilaabaya hadii lagu yiraahdo wax kasta way suka dul saaran yihiin dooqaaga meeqa dumar guursan lahayd السلام عليكم aad baan ku salaamayaa shiina marka hore magacaygu waa Idris Baasha Cabdullaahi hadii la yiraahdo wax walba wad haysataa imisa dumar aad guursan lahayd anu waxaan guursan lahaa hal baan guursan lahaa halkaaga ka badan halkaas iga badan halkaana waa ban qabaayo waa raali alxamdulillah midaasan ku adkaysanaya cimrigayga inta ka dhimo ma sha Allah ma santahay adaa mudan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni su'aalaha goobtu waa kaasal aniguna waxaan heshiina madaxay dabcan hadii qof igu horeeyay dabcan baatay su'aalaha nagala qayb qaadanaya maanta hadii lagu yiraahdo hawlwelin wax kasta meel bay ku saaran yihiin meeqa dumar ah baa guursan lahayd magacayga waxa la yiraahdaa Yasiir Salmaan hadii lagu yiraahdo hawlwelin iska guurso iska dhal laga kafaala qaad وهو البكا ما صار يقوسوا أفر بقوسنا أفرت شريعة كوا قشاي شريعة قشاي قوسنا فما سنتها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاعد بلابيا دوخ حاجة ما يقدم رجل سلاح ما قاعد يقول عيسى سياد dooqayga markaan ilaahay ka boqo hadii aan lab u jecelahay hal ayaan ku sinaa lahaa hadii qadarin iyo ilmo kaliya aan ku qadariyeenayna laba ama saddex ayaan guursan lahaa sababtoo ah jacayl ma jiro qadarin un baa jirtay ilmaha ku dhowro laakiin jacaylka dhabtahay hal qof un buu kala qalbiga waa mahadsantahay ayaan ku sinaa lahaa waa mahadsantahay adoo magaca ku bilaabaya su'aal baan ku weydiinaynaa su'aashuna waxay u dhacaysaa sida tan hadii lagu yiraahdo wax kasta waa lagu qabaa oo waliba waa loo cadaalad falaya si siman meeqa dumar ah ayaa guursan lahayd horta magacayga ku bilaabo magacaygu waa Axmed Cabdirasaaq ku magac dheer Axmed Bib kuntii shiina su'aasha ay weydiisay waa su'aal muhiim oo fiican kuntii anigu dooqayga iyo waxaan ka helo hadaan ka hadlo anigu waxaan guursan lahaa wax walba la siinayo inaan hal qof nolosha la wadaago
hal qof inaan nolosha la wadaago waayo nolosha waxay ku macaan tahay inaan hal qof la wadaago la noolaato runtii iyo dee nolosha ilmihii haddii yimaadaan ilaahay kala siiyo si yacni nolol farxad badan iyo ilmahaagii iyo qoyskaagii oo wadaagtiin markaan waxaan jeclahay inaan wax walba adduunka la siiyo yacni aan la wadaago nolosha hal qof jecel adna jecelahay baa jeclay inaan la wadaago waayo haddaan guursado laba naagood oo kale ama saddex naagood oo kale guursado uma cadaalad falay Soomaali baan runta marka laga hadlo laakiin hal qof markii aan yacni aan guursado oo nolosha la wadaago oo cadaalad falaya wax walba dib iyo dheef isla qaybsanaynaa nolol qurux badan baa wadaagaynaa yacni carruur ilaahay hadduu na siiyo si qurux badan baan yacni isha mataqaanaa aan yacni wada korinina ma garat marka runtii halka qof aad ku ekaan halka qof baan ku qanacsanahay kuna faraxsanahay waligiina ku qanacsanahay hal qof nolosha la wadaago waa ma santahay kumana degdegayo in yacni mataqaanaa qof iska guursa aan ahayn laakiin aan ka fiirsado qofka nolosha la wadaagi lahaa farxadeedana ay ku dheehan tahay waa ma santahay aad iyo aad waa barnaamijkii su'aalaha daawadayaal adoo magaca ku bilaabaya hadii lagu yiraahdo wax kasta way isu ka saaran yihiin dooqaaga meeqa dumar guursan lahayd السلام عليكم magacaygu waa Mustafa si wanaagsan su'aasha inkasta su'aal adag tahay waxaan oran wallahi mid uma gursan lahaa mid aad ku ekaan lahayd aad iyo aad waa ma hasantahay Mustafa aad iyo aad mudan daawadayaal kaasal baan joognaa waa barnaamijkii su'aalaha adoo magaca ku bilaabaya waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Axmed oo ku magac dheer Axmed Qoofal hadii lagu yiraahdo dooqaaga wax kastana isku dul saaran yihiin wax walwala ma jiraan dooqaaga meeqa dumar guursan lahayd te afartii shariicadu sheegtay baan kaga dhamaan lahaa afartaas guursan lahaa hadii ay waqtigu ii saacideeyo bismillaahir rahmaanir rahiim adigoo magaca ku bilaabaya hadii lagu yiraahdo wax kasta way isku saaran yihiin wax walwalana ma jiraan meeqa dumar guursan lahayd magacaagana noogu bilow magacaygu waa Mataan Raage wallahi dumar waxaan guursan lahaa hal dumar guursan lahaa hal dumar guursan lahaa mid labaad mid saddexaad qashaaga guursan halkaaga saxab wal noloshaaga la qaadan lahayd dadkooba intaas haba ani fasoma waa halka xabaaba maxaan ku raahdaa ii sheeg aad iyo aad kulli dooqaygu waa saas waa mahadsantahay daawadayaal wali wax noo socda barnaamijkii su'aalaha goobtu waa kaasal aniguna dabcan shiina madaxay baan ahay magacaaga ku bilaabaya hadii lagu yiraahdo wax kasta waa ama adigu aad awoodo ama lagu yiraahdo wax kasta waa lagu qabaan lagu cadaalad falaya adoo magaca ku bilaabaya meeqa dumar guursan lahayd wallahi awalan ma santahay shiina magacaygu Cabdiraxmaan Yaasiin su'aasha waxaa maleynayaa afar dumar meeqa dumar guursan lahayd marka awoodo way wax kastana ay saaran yihiin waa inta shariicadu gashay mar hadii si wax u maqneen afar ka meeranaysa كوس مسلمين لا بدي أواجه وما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم هدي أضو مقعة وكبلابية هدي اللي يقولوا هو الولين وحكي استوى لجو قبعة من قد دمرة بقول سنة بسم الله الرحمن الرحيم مقعة عثمان محمد صالح ولا دي وحول ميلا لو سارة عندي ده فرد حال بقول سنة هدي يقول حماد وطور الله يمد كلا رادين لا لكن لا هو بقول سنة هل كان أخوي كان له هدي وما تنو بدل لا لكن بدل لجو مقلا وقت كيس هدي اللي يقولوا وحكي استوى لجو قبعة كوات كيسو هل مربى ليه هي وقلان شهر ها مرك هدي اللي هل كان مر إسراع صو ميقا قول سنة تقول أفرت واحد مين لا أفرت شرعة كو قشاي شرعة واحد مين لا وحي هم هذا واسكتور وحي وناكسنا وما سنت barnaamijka su'aalaha goobtu waa kaasal aniguna waxaan ay daawadayaal shiina madaxay adoo magaca ku bilaabaya hadii lagu yiraahdo ama ilaahay wax ku siiyo ama lagu yiraahdo wax kasta waa lagu qabaa hana walwalin صح meeqa door guursan lahayd magacaagana ku bilow kulay hadii xagga diinta loo eego hadeer ma jirto xabad la xoreynaya moogta adduunka loo casri buu wadayahay wada gumaysaade ma jirto oo meel qof la soo xoreynaya ma jirto waxa jeclaanaha laakiin afar waa inta shariicadu ku ogoshahay waa inta shariicadu ogoshahay hadii xabad la xoreynaya jirto la haystana xoreyn maxaa ka wadaa xilliga hore xabad loo adoonsani jiro si dumarada hore loo adoonsani jiray asxaabtu ay xoreyni jirto kale way ku shanayni jireen marka hadda ma jirtaan filayaa wadamada islaamka oo sida caalamka waa sax marka bas laakiin guursanaa si hadda diintu ay qabto inta diintu ku ogoshahay waa ma hasan tahay magacaaga magaceedu waa guulada
xasan xuseen waa maasanta guul barnaamijka su'aalaha goobta waa kaasal aniguna waxaan ay daawadayaal shiina madaxay adoo magaca ku bilaabaya hadii lagu yiraahdo ama ilaahay wax ku siiyo ama lagu yiraahdo wax kasta waa lagu qabaa hana walwali صح meeqa door guursan lahayd magacaagan ku bilow kolay hadii xagga diinta loo eego hadeer ma jirto xabad la xoreynaya moogta adduunka loo casri buu wadayahay wada gumiisada ma jirto oo meel qof la soo xoreynaya ma jirto wax jeclaanaha laakiin afar waa inta shariicadu ku ogoshahay waa inta shariicadu ogoshahay hadii xabad la xoreynaya jirto la haystana xoreyn maxaa ka wadaa xilliga hore xabad loo adoonsani jiro si dumarada hore loo adoonsani jiray asxaabtu ay xoreyni jirto kale way ku shanayni jireen marka hadda ma jirtaan filayaa wadamada islaamka oo sida caalamka waa sax marka bas laakiin guursanaa sida diintu iyo qabto inta diintu ku ogoshahay waa maasantahay magacaaga magacaydu waa guulada xasan xuseen waa maasantahay